haddii aad ahaato qof u samra noloshiisa dadaalkiisa waxaad ahaan doontaa midka loogu jecel yahay looguna ixtiraamka badan yahay maalinta uu guulaysto. waxaynu maanta soo qaadan doonaa dhowr qof oo ahaa kuwii ka gudbay caqabadaha nolosha kadibna noqday kuwa loogu tixgelin badan yahay. lambarka koowaad waxaa noogu jira nin la oran jiray Thomas Edison. waa ninkii ugu horreeyay ee iftiinka adduunka soo gaarsiiyey. Thomas Edison oo ahaa ninka hindisay nalka korontada waxaa la sheegay inuu ku fashilmay in ka badan 1000 jeer ka hor inta aanu guulaysan. dad badan ayaa ku qoslayay oo ku dhihi jiray maxaad ugu sii daalaysaa wax aan macquul ahayn. laakiin Edison wuxuu ku yiri anigu ma aanan fashilmin 1000 jeer ee waxaan helay 1000 dariiqo oo aan shaqaynayn. haddii uu ka hari lahaa dadaalkiisa maanta dunidu waxay ahaan lahayd meel mugdi badan oo aan koronto lahayn. ninka labaad waa Nelson Mandela. Nelson Mandela wuxuu ku jiray xabsi muddo 27 sano ah isagoo u dagaalamayay xorriyadda dadka madowga ah ee Koonfur Afrika. qof kasta oo caadi ah wuxuu ka hari lahaa riyadaas muddo dheer ka hor, laakiin Nelson Mandela ma uusan ka harin oo wuu diiday midaas. ugu dambeyn wuxuu noqday madaxweynihii ugu horreeyay ee Koonfur Afrika oo si cadaalad ah loo doorto, wuxuuna dunida tusay dulqaad iyo adkaysi in lagu gaari karo xorriyad dhammaystiran. lambarka saddexaad waa Rowling, qofka qoray Harry Potter. qoraaga buugaagta caanka ah ee Harry Potter waxay ahayd hooyo sabool ah oo ku noolay London, waxayna ku tiirsanayd kaalmo dhaqaale. intii ay qoraaga ku jirtay, daabacayaasha buugaagta ayaa ka diidi jiray inay u daabacaan buuggeeda in ka badan 12 jeer, laakiin ma aysan ka harin. ugu dambeyn buuggeedii wuxuu noqday midka ugu iibinta badan taariikhda, iyadana waxay noqotay mid ka mid ah haweenka ugu hantida badan dunida. lambarka afraad waxaa ku jira nin la oran jiray Michael Jordan. waa halyeygii kubadda kolayga. Michael Jordan oo loo arki jiray ciyaaryahanka ugu wanaagsan ee kubadda kolayga markii uu dugsiga sare joogay, waxaa laga reebay kooxda kubadda kolayga. ciyaartooy badan oo kale way ka hari lahaayeen riyadooda, laakiin Jordan wuxuu go'aansaday inuu sii tababarto si ka adag sidii hore. wuxuu ku celcelin jiray saacado badan maalin walba ilaa uu ugu dambeyn noqday halyeyga caanka ah ee caalamka. lambarka shanaad waa Sayid Maxamed Cabdulla Xasan, geesigii Soomaaliyeed. haddii aan tusaale u soo qaadanno, Sayid Maxamed Cabdulla Xasan wuxuu ahaa hogaamiye iyo hal-abuur suugaaneed oo muddo dheer dagaal kula jiray gumaysigii Ingiriiska iyo Talyaaniga. inkasta oo caqabado badan iyo dagaallo culus uu la kulmayay, haddana ma uusan ka harin halgankiisii. gabayadiisa iyo hogaamintiisuba waxay dhiirigeliyeen jiilal badan oo Soomaaliyeed oo qiimeeya madax bannaanida. casharada aan ka baran karno tusaalooyinkaas waxay kuu sheegayaan in ay guushu mar walba ay u baahan tahay kana dambayso dulqaad iyo isku day badan. guuldarradu ma aha dhammaadka, waa qayb ka mid ah safarkaaga nololeed. qofka aan ka harin wuxuu ugu dambeyn noqdaa mid dadka kale tusaale u noqda. gunaanadkii, marka aad ku jirto xaalad adag, xusuuso Nelson Mandela oo 27 sano sugayay xorriyaddiisa. xasuuso Thomas oo 1000 jeer ku fashilmay. xasuuso Jordan oo laga reebay kooxdiisa ugu horreysay. xasuuso sidoo kale Sayid Maxamed oo halgan dheer ku jiray isagoo difaacaya qarannimada. haddii ay iyagu awoodi karaan inay sii wadaan safarkooda iyagoo ka gudbaya caqabadaha waaweyn, adiguna waad awoodi kartaa inaad ka gudubto caqabadaha kugu hareeraysan, waana gaari kartaa halka ay niyadaadu iyo maskaxdaadu ay jecel yihiin inay gaaraan. muhiimadu waa inaad leedahay adkaysi iyo dulqaad, aadna og tahay
halka aad u socoto, aadna og tahay halka aad ka timid. Waxaan idin rajaynayaa intiina daawatay iyo intiina daawan doontaba guul iyo horumar wanaagsan ee nololeed.